saadaalinayay in yani xiriirka asaga iyo Ethiopian ku dhaxeeyay wanaagsan doonin inkastoo markii uu ku guuleystay tagada ku guuleystay oo madaxweyne Farmaajo uu cadeeyay in macnaha yani wadamada jiraanka uu kula noolaan doono yani ixtiraam iyo maartay wada shaqayn uu kula noolaan doono maartay oo Soomaalida maanta cusub ahaan jiray Soomaalida hore ahaan doonin oo Soomaali cusub ay maadday marto nidaam cusub iyo foreign yani siyaasad aragtida ku wajahan wadamada jiraanka marka uu dejiyay waan gartay markii la doortay dabcan si ka duwan sida madaxdii hore Ethiopia ma ahayn wadanka ugu horeeya ama wadamada ugu horeeya ee uu booqdo marka hadda waxaad soo dalqaaday ereyga siyaasadda arrimaha dibadda arrintaasi maxay muujinaysaa horta waxay ahayd inta badan si lagu yaqaan madaxda Soomaalida markii ay soo la doorto oo madaxay ay yani bariyahan dambe markii laga soo bilaabo xilliga dawladda militariga ay burburtay inay yani booqasho ugu horeeya Ethiopia ku tagaan maartay laakiin waxa moodaa runtii ninka inuu taa ka dawanaa markii doorashada la doortay waddanka Ethiopia waxay u fidiyeen martiqaad bay u fidiyeen laakiin wuxuu ka doorbaday inuu waddanka Sacuudi Carabiya u aado kadibna wuxuu maaday waddankan Kenya yimaaday oo si diiran lagu soo dhaweeyay wadamo badan ugu booqday boqol bari ka bacdi doorashadiisii ama yani 3 bilood ka bacdi ayuu iminka maanta ku beegan yahay waddanka Ethiopia marka boqolka bari waxyaabo badan ba marka ayaa dhacay dowladda Ethiopia yani ciidamo fara badan oo Ethiopia ka joogay gudaha Soomaaliya ay Ethiopian ka bixiyeen ayagoo marka yani meelay ka bixeen ay dib u qabsadeen xarakadan islaamka al-shabaab dib u qabsadeen meelaha weli gobolada dhexe u badan iyo gobolka Bay yani Tioglo iyo maartay yani Elbur meelo badan ay ka bixeen ilmo fara badan oo Ethiopian oo marka laakiin aan ka tirsanayn ama Soomaan ka tirsanayn oo marka waddanka gudaha ugu jiray ayaa meelo fara badan ay hayeen ay ka bixeen maartay marka taas dad badan oo meelaha wax saadaariya dad badan oo wax qora dad badan arrimaha geeska Afrika ka faalooda waxay ku tilmaameen inay ahayd macnaha Ethiopia ku inay sharraali keen xukuumaddan macnaha hadda majraha u hayo madaxweyne Farmaajo laakiin hadda waxa weeyaan wuxuu ku soo aadiyay boqoshadiisii يعني وحدونا إنه وناجيو حريك ودحية إثيوبيا يكيو مارتي ودنك الصومالي إنه وناجيو وأدليست معنا أسكت دي مارتين يعني وحفك قالوا له يغير دامج كنترول ما دامج كنترول إنه السمايو وانقرتي هدينو كهذا إنه بلشدة عالمك هدينو سيجارون عن أمريكان كا يوروب أنت بدن أنت بربرك الصومالي كجرتي waxay u soo Soomaaliya u soo mari jireen wadanka Ethiopia iyo wadanka Kenya Ethiopia ba ha u badnaatay dawladdan Farmaajo arintaas sina ma uga duwantay horta Farmaajo xukunka markuu qabtay arinta uu muujiyay wuxuu isugu yeeray beesha caalamka wuxuu isugu waradan yani deeqaha bixi isugu yeeray yani NGO-da fara badan wadan guud ka shaqay u yeeray wuxuu sheegay maartay in yani hal meel macnaha wadanka Soomaaliya maanta yani xukuumadda dhexe macnaha wax kasta ay qabanayaan ay uga siiyaan marka runtii waxa moodaa runtii yani wadamada reer galbeedka iyo wadamada maartay Mareykanka waxay runtii ay ku qanacsan yihiin in يعني مدحين فرماج وهايستو الشعبية dadka Soomaalidu haysto shacbiyad fara badan oo haysto in maanta wadada Soomaaliyeed markasta ku nooshanay raacsiin uu yahay waxa marka isbedelaya يعني nidaamkii hay Soomaaliya arrimaha Soomaaliya lagala tashay wadanka Ethiopia isbedelaysa maadaama ay timaado xukuumad macnaha shacabka Soomaaliyeed ay ku kalsoon yihiin inta badan madaxweynaha isaga ka horeeyay ama markii yani waxay ahayd madaxweynaha macnaha doorashadu inta badan ay ka dambeeyaan wadanka Ethiopia iyo raggan reer galbeedka ay ka dambeeyaan marka shacabka Soomaaliyeed marka uma arkaynin yani xukuumad matali karta ayaga laakiin waxaad moodaa runtii Farmaajo inuu taa kaga duwayahay kuwa isaga ka horeeyay maxaa yeelay isaga kalsooni ayuu shacabka haystaa in yani xukuumaddiisu ama yani madaxweynaha wadanka Soomaaliya iminka talada haya shacabka Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu kalsoon yihiin oo runtii ay kalsooni badan u muujiyeen taasoo marka aysan haysanin madaxweynaha isaga ka horeeyay عبد الوهاب الشيخ عبد السمد oo khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi waxa uu qadka telefoonka ugu warramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo ku sugan magaalada Washington dalkan Mareykanka waxaa ku sugan in ka badan 1 milyan oo arday oo ka yimid dalalka caalamka tiradan ayaa tan ugu badan dunida haddaba idaacadda VOA-da ayaa qabatay kulan bulsho oo si toos ah ay ardayda iyo dadka xiiseeya waxbarashada uga qayb qaadanayeen kulankan ayaa waxaa marti ku ahaa khubaro ka socota qaar ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee caalamka kuwaas oo ka jawaabayay su'aalaha la xiriira sida ay ardayda ugu beeri karaan jaamacadaha Mareykanka ugana faa'iideysan karaan warbixin arrintaa ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre kulankan ayaa ahaa mid si toosa loogala socday bogga ay baraha bulshada VOA-du ku leedahay waxaana uu soo jiitay kumanaan dhalinyaro ah oo iyagu rabay inay wax ka ogaadaan qaabka ay fursado waxbarasho uga heli karaan jaamacadaha Mareykanka khubarada martida ku hayd kulankan ayaa ka jawaabayay su'aalo kala duwan oo la xiriira
qaabka loola xidhiiri karo jaamacadaha iyo shuruudaha laga rabo qofka doonaya inuu ku biiro jaamacad ku taalla maraykanka. mid ka mid a su'aalaha lasoo bandhigay ayaa waxaa ka mid ahayd su'aal la xidhiidha nooca uu yahay ardayga ay jaamacadaha maraykanku rabaan in ay wax baraan. waxaa arrintaasi ka jawaabay Douglas Show oo ka tirsan jaamacadda George Washington. We're looking to build a community and we need all sorts of folks in it. But particularly folks that imagine themselves to be highly competitive, that are working. waxaan rabnaa inaan bulshada dhisno, waxaan rabnaa in cid walba ay wax barato, laakiin waxaan si gaara u rabnaa ardayda awoodda u leh inay siyaabo kala duwan u shaqeeyaan. waxaana arrimaha ugu muhiimsan ka mid ah in ay fikradooda cabiraan oo ay muujiyaan karti iyo hoggaan. As a mechanism to communicate who you are to us and how you'll fit in and contribute to our community. sidoo kale waxaa isla arrintani ka hadlay Paul White oo ka tirsan jaamacadda John Hopkins. I just came back from visiting an institution in China, which I won't name at this time, and they are creating a medical school. waxaan dhowaan ka soo laabtay dalka Shiinaha, waxaan booqday jaamacad dalkaasi ku taala iyaga oo rabay in ay furaan kulliyad lagu barto caafimaadka. waxayna i weydiiyeen sida ugu habboon ee ardayda loo soo xuli karo. waxaan kaloo u sheegay in ka sokow dhibcaha sare loo baahan yahay in dhakhtarku uu yeesho xirfado kale oo isugu jira go'aan qaadasho iyo u dhaganuglaanta qofka buka. jaamacaddaasi ayaa dalka Shiinaha ka bilaabi doonta in arday cusub la wareysto. jaamacadaha Mareykanka ayaa ka sokow imtixaanka waxbarashada waxaa jira wareysyo lala yeesho ardayda si loo kala saaro. qodobada kale ee khubarada waxbarashada ee Maraykanka iyo ardaydu ay isla wadaageen ayaa waxaa ka mid ah shuruudaha lagu xiro ardayda imanaysa Maraykanka, taasi oo ugu horreyso inuu ardaygu si fiican u yaqaano afka Ingiriisiga, sida uu faahfaahinayo Douglas Show oo ka tirsan jaamacadda George Washington. Well, so we're going to evaluate folks' English skills, and that's going to be a necessary element of their preparation. We do offer English for academic purposes here on campus. waxaan qiimeynaa heerka ay marayso luqadda ardayga, sababtoo ah luqadda wax lagu bartaa waa afka Ingiriiska. waxaan ka caawinaa inuu barto erayada muhiimka u ah waxbarashada sare. We need folks to be able to participate. Paul White oo ka tirsan jaamacadda John Hopkins ayaa sheegay in ay jiraan imtixaano kala duwan oo u gaar ah luqadda Ingiriiska, gaar ahaan ardayda rabta inay waxbarashadooda sare ee jaamacadda sii wataan. They will have to take the SAT or the ACT in English, and they'll have to take the TOEFL. waa inay ardaydu soo maraan imtixaano kala duwan isla markaasna ay qaataan shahaadooyin ku saabsan luqadda Ingiriiska. waxaana jira barnaamijyo u gaara dadka aysan luqadda Ingiriiska u ahayn afkooda hooyo. ardaydii ka qayb qaadatay kulankan ayaa su'aalo kala duwan oo isugu jira kuwa dhinaca waxbarashada ah iyo dhinaca nolosha ardaynimo ee gudaha Maraykanka la wadaagay khubradii kulankaasi ka soo qayb galay. aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dalkan Maraykanka oo ay ku sugan yihiin in ka badan 1 milyan oo arday oo ka kala yimid caalamka oo dhan. fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal aanu idin leenahay. magaalada Washington waxaa maalmihii Isniintii iyo Salaasadii ka dhacaya kulan ay leeyihiin ururada iyo weliba hay'adaha u dhaqdhaqaaqa difaacidda xuquuqda dadka Islaamka ah. kulankaasi oo ay ka qayb galeen boqolaal ergooyin ah oo ka kala yimi waddankan. mas-uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ah Sheekh Xasan Dooye oo ah xubin guddida imaamiyada ee waqooyiga Amerika kuna sugan magaalada Minnesota. waxaana khadka telefoonka goordhoweyd kula xiriiray Sheekh Xasan isla markaana wax ka weydiiyey shirka iyo weliba waxyaabihii lagaga wada hadlay. shirkani wuxuu ahaa shirka saddexaad ee sanadlaha ahaa madaxda muslimiinta ee Maraykanka ay isugu tagaan Washington DC si ay ula kulmaan mudanayaasha labada aqal. waayahay maxaa laga wada hadlaya Sheekh Xasan marka kulankan la yeeshay mudanayaasha iyo weliba madaxdaasi isku yimaadeen? shirka shir aad muhiim u ahaa, waxaa kasoo qayb galay ilaa 450 Muslim leaders ama dadka madaxda ee muslimiinta ee qaybaha kala duwan jooga. waxaa lagala hadlayay arrimo muhiima. 3 qodob ayaa xoogga la saarayay. waxaa la diyaariyay document qoran oo mudanayaasha qaar ka mid a mar hore lagala hadlay oo aqbaleen inay sharciyadaas geeyaan baarlamaanka labada aqal. 3 qodob baa ugu muhiimsanaa.
waxaa lagala hadlayay dadka muslimiinta ah sharciyo ilaalinaya xuquuqdooda muslimiinta maraykanka in labada aqal la mariyo oo mid uu ka mid yahay anti muslim ban act dadka muslimiinta ah ee loo diiday inay maraykanka soo galaan arrintaa inay noqoto arrin sharci ah qaybtii hore iyo qaybtii dambaba sidoo kaleeto boorarada iyo marka la marayo aeroboorada aad baa loogu dhibaataya dadka muslimiinta ah iyadana in laga soo saaro sharci arrintaasina ay tahay arrin ka hor imaanaysa constitutionka waddankan iyo qaabka uu yahay in muslimiinta gooni loo tilmaamadsado sidoo kale waxaa lagala hadlayana qodob kale oo ah in madaxweynaha dalka marka uu doorashada ku jiro uu sameynaya waxa la yidhaahdo registration ama dadka muslimiinta gooni baan u qoraya ID baan u sameynaya iyadana anti registry act sharci la yidhaahdo inay baasgareeyaan ayaa laga hadlay qodob kaloo muhiimka lagala hadlay walaal wuxuu ahaa dadka loo yaqaano dreamerska oo maaragtay waddankan jooga oo sida sharci macnaha aan documentiga haysan ama sharciyada haysta kumeel gaarka ah ee aan rasmiga ahayn baa iyagana lagala hadlay oo dad tiro badana oo muslimiin iyo dad aan muslimiin ahaynba waayahay haddaynu gaar u soo qaadano xasan arrinkan dhinaca muslimiinta ee muddooyinkan dambeba keenay muranka amaba dooda kala duwan keenay ma jiraa wax la isla meel dhigay amaba xilli la meel marinayo shuruucda iyo weliba qawaaniinta aad tilmaantay in laga wada hadlay ee hay-adaha sharci dejinta aad kala hadasheen arrintan rajo fiican baa laga qabaa waxaa 450kaas madaxda ah waxaa la isu kala qaybiyey gobol kasta dadkii ka yimid waxay la ballansanaayeen mudanayaasha laga soo doorto gobolladooda ee labada aqal ku jira hadda tusaale ahaan annaga reer Minnesota waxaan ahayn 12 qof oo muslimiina waxaan la kulannay in ka badan 10 mudane oo laga soo doorto gobolkan Minnesota waxaana u sheegaynay codsanaynay in sharciyadan ay ka noqdaan qayb dadka isku qoraya oo wax ka meel marinaya aad bayna u soo dhaweeyeen mudanayaasha kalena sidaas ayaa loola hadlay marka waxay ahayd xilligii ugu horreysay oo arrintan lagala hadlay dabcan waa lasii dabagelayaa laakiin kabitaalka aad baa looga dareemay shalay iyo maaragtay doraad ilaa 500 dad ku dhow oo muslimiina oo wadanaha muslimiinta u doodayay gaar ahaan qodobka ay weydiisay dadka ka qayb galay markaynu ka nimaadnay iyo deegaanadii ka yimaadeen soomaalida oo kale tiri intee leeg baad ku socoteen eed uga qayb gasheen kulankaasi si qodobadaad ka hadasheen gaar uga hadasheen maxaa ka mid ahaa annaga waa su-aal aad wanaagsan weeye soomaalida maana badnayn runtii dad kooban baan soomaalida ku ahayn oo kulligayo gobolkan Minnesota ka socday annaga gooni ahaan waxaan ka hadalnay haddaan dadka Soomaaliyeed nahay gaar ahaan gobolkan Minnesota jooga waxyaabaha gaarka noo khuseeya ka mid tahay deportationka ama dib u celinta dad tiro badan oo Soomaaliya lagu sameeyey iyo qaar badan oo cabsidaasi ay ku keentay inay xuduudda Canada u gudbaan gaar ahaan xilligii qabowga ahayd ee bishii Janaayo iyo bishii December dad fara badan ay ku gudbeen xuduudda Canada iyo u dhaxaysa Mareykanka arrimahaasaan kala hadalnay iyo dadka dhibaatada ay ku keenayso iyo sida ay dad qoysas fara badan oo ku nool Mareykanka ku abuurtay marka ay dareemayaan inay kala qaarmayaan oo iyaga iyo dadkoodii isku qoyska ahaayeen laga yaabo inay qaarna Canada u cararaan qaarna dib loo celiyo qaarna ay halkan joogaan arrintaasaan kala hadalnay iyo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed sida ay waxtar u yihiin gobolkan oo runtii ay macno ugu leeyihiin hadday noqon lahayd xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga aqoonta marka waxaan xusnay inaan nahay xuduud aan la inkiri karin Soomaalida ku nool gobolkan Minnesota qof kastana uu berri cod u baahan yahay oo ay qasab tahay inuu cod naga soo doonto marka maanta in taageero laga helaynay muhiim sheekh xasan dooye oo ah xubin ka mida guddida imaamyada waqooyiga Amerika kuna sugan magaalada Minnesota waxa uu iiga warramayay shir ay dhawaan ku yeesheen magaalada Washington isla markaana ay ka qayb galeen hay'adaha u dhaqdhaqaaqa difaacidda xuquuqda dadka islaamka ee ku sugan waddankan Mareykanka fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 3 bisha May sanadka 2017 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac sida aad ku maqlayseen idaacadeennii shalay warbixin ay soo saartay hay-adda Ocean Beyond Piracy ayaa lagu sheegay in sababaha soo celiyay
burcadbadeedu in ay ka mid tahay hoosu dhaca ku yimid feejignaan la-aanta maraakiibta iyo hoosu dhaca maraakiibta caalamiga ah ee badaha soomaaliya ku sugan. taasina waxa ay fursad siisay burcadbadeeda soomaalida ahi. haddaba waxaan waraysi la yeelanay afhayeenka howlgalka ciidanka badda midowda yurub ee ilaaliya biyaha badda soomaaliya taliye Jacqueline Sharif oo ku sugan dalka Britain, waxaana faahfaahin ay ka bixisay howlgalkooda iyo weliba arrimaha la xiriira kalluumaysiga sharci darrada ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka taleefanka ku waraystay, waxaana waraysiga la soo jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan. ugu horreyna afhayeenka ayaa ku jawaabaysa shaqada ay ka hayaan badaha Soomaaliya. Okay then, so regarding UNAVFOR's mandate, our main tasks are to protect World Food Programme vessels. howlaha ugu waaweyn ee uu qabto howlgalkan ciidamada badda ee midowda yurub ee EU Naval Force ayaa ah ilaalinta maraakiibta mucaawinada sida ee hay-adda WFP ilaa ay si nabada uga gaarayaan dekedaha Soomaaliya. sababta aanu u sameynayno ayaa ah waxaa naga codsaday qaramada midoobay inaan ilaalino maraakiibtan sanadkii 2008. sababtoo ah waxaa jira walaac la xiriira in burcadbadeedu ay bartilmaameedsan karto maraakiibta mucaawinada sida. warka wanaagsan ayaa ah tan iyo xilligaasi ma jiro markab ay leedahay WFP oo ay weerareen kooxaha burcadbadeedu. sidee u ilaalisan maraakiibta mucaawinada sida? bal haddaad tusaale naga sii sidoo kale. waxaanu u ilaalinaa maraakiibta WFP laba hab. tan koowaad oo ah inaan raacino markab dagaal oo hareer socda markabka mucaawinada sida, kaasoo ka hortegaya haddii kooxaha burcadbadeedu ay is yiraahdaan weerar ku qaada, sida markab ka tegay Jabuuti oo u socday Muqdisho oo kale. qodobka labaad ayaa ah inaanu markabka mucaawinada sida laftiisa aanu saarno ciidan militari ah. sidaasi aawadeedna haddii la soo weeraro waxaa markabkaasi difaacaya askarta saaran. saan horay kuugu sheegay maraakiibta WFP midna ilaa iyo haatan lama afduubin. haatan waxaa dib u curtay weeraradii burcadbadeeda. hore ma u filayseen in ay soo noqon karto? Well, I have to say that EU Naval Force has been warning for some time that there was a need for vigilance and off the coast. What we did know is that howlgalka ciidamada badda ee midowda yurub ee Soomaaliya mararka qaar way ka digeen inay jiri karto halis ku aadan in burcadbadeedu soo laabato. waxaan se ogahay in burcadbadeeda loo diiday sanadihii ugu dambeeyay inay helaan fursad ay ku aadaan badaha. taasina waxay ka dhalatay wada shaqayn dhex martay ciidamada ilaalada badda iyo hanaanka isdifaaca ee maraakiibta. taana waxaanu ognahay inay keentay in weeraradii burcadbadeedu ay noqdeen kuwa aan guul badan gaarin. waxaan filayaa in xasilooni darrada ka jirta gobolka Geeska Afrika ay tahay sababaha mar kale dhiirigelinaya inay dib u soo abaabulmaan. inkastoo haatan ay weeraradooda ay ku guulaysteen, haddaba waqti badan uma suuro gelin in ay haystaan. badaha Soomaaliya waxaa si weyn looga cawdaa arrinta kalluumaysiga sharci darrada ah. qodobkaasi ma yahay mid idinku jira mas'uuliyadihiina? As part of our mandate, what we do, we monitor fishing activity off the coast of Somalia. howlaha aan u xil saaranahay waxaa ka mid ah inaan dusha kala soconno kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya iyadoo la eegayo baaxadda xeebaha Soomaaliya. waxaa maraakiibtayadu ay qabtaan annagoo kaashanayna maraakiibta kale. haddii aanu aragno markab ka kalluumaysanaya xeebaha Soomaaliya, waxaanu diiwaan gelinaa magaca markabka, goobta uu ku sugan yahay iyo weliba nooca qalabka kalluumaysi ee uu isticmaalayo. marka aanu macluumaadkaas ururino waxaanu u dirnaa xarunta midowda yurub ee Brussels, halkaasi oo uu fadhiyo agaasimaha guud ee qaabilsan dhinaca badaha. waxay qiimeeyaan macluumaadka aan u dirnay iyaga oo la kaashanaya mas'uuliyiinta ku sugan deegaanka markabkaasi kalluumaysi uu ku sugnaa, si ay u ogaadaan in markabkaasi sharci darro uu u kalluumaysanayay iyo in ay tahay in la maxkamadeeyo. sida markab lagu magacaabo Kareko 1 kaasoo lagu ganaaxay ilaa iyo $60,000 isagoo si sharci darro ah uga kalluumaysanayay badaha Soomaaliya. waxaan la hadlay mas'uuliyiinta Soomaalida gaar ahaan kuwa Puntland iyo Galmudug. inkasta oo ay ka marakaceen in uu jiro iskaashi ay la leeyihiin ciidamada caalamiga ah ee badaha ilaaliya, haddana waxay idinku eedeeyeen inaydaan waxba ka qaban kalluumaysiga sharci darrada ah oo ay u arkaan in uu yahay
sababta ugu weyn ee keenaysa burcadbadeedda maxaa idinka hortaagan in aad tallaabo ka qaadaan maraakiibta ama doonyaha sida sharci darrada ah uga kalluumaysta Soomaaliya? Well, so, as a counter-piracy force, our focus is the protection of World Food Programme ships and also to deter pirates. waxaanu culayska saarnaa ilaalinta maraakiibta raashinka sida ee hay-adda WFP. sidoo kale waxaanu gacan ka geysanaa ka hortagga burcadbadeed. sidoo kale waxaa shaqadayada ka mida inaan la soconno dhaqdhaqaaqa kalluumaysiga. sidaasi darteed haddii aanu aragno markab kalluumaysanaya waxaanu fariin u dirnaa xarunta Brussels si ay tallaabo uga qaadaan haddii loo baahdo in sharciga lala tiigsado. laakiin sidaad la socoto qaar ka mida maraakiibta kalluumaysanaya waxay haystaan sharci u ogolaanaya inay kalluumaystaan. shaqadayada ma ahan in aanu go'aan ka gaarno kuwa sharciga ah iyo kuwa sharci darrada ah, balse waxaanu xogta u gudbinaa Brussels iyaga oo dambi baaris ku sameynaya. xogtan aad ururisaan ee aad u dirtaan Brussels yaad la wadaagtaan xageesa ku dambaysaa? They will work with local authorities, the Somali authorities. waxaanu la wadaagnaa mas'uuliyiinta gudaha iyo maamulada. waxaana jira maamullo kala duwan oo ay arrintan qusayso. waxayna markaasi go'aan ka gaaraan in markabku sharci haysta iyo in kale. dhinaca kale waxaa jira guddi kale oo lagu magacaabo guddiga badweynta Indiya ee kalluunka tuunaha oo iyaguna arrimahan ka shaqeeya. mas-uuliyiinta maamulada Soomaalida qaarkood waxay soo jeediyeen in la ballaariyo howlgalkiina, tusaale ahaan lagu daro arrimaha ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah. arrimahaas oo kale yaa leh mas-uuliyadooda oo ballaarin kara? Yes, I am aware that the Somali federal government has got concerns about illegal fishing. waxaan ogahay oo aan ka warhayaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay walaac ka qabto kalluumaysiga sharci darrada ah. waxaana walaacaasi la wadaagnaa Midowga Yurub. waxaana arrintaasi go'aan ka qaadan kara Midowga Yurub, gaar ahaanna xarunta dhexe ee Brussels. waxaa hadda uu xilnaga saaran yahay ilaalada maraakiibta WFP iyo ka hortagga burcadbadeedda, laakiin arrinta kalluumaysiga iyo dabagalka la xiriira waa mid u taalla xarunta Midowga Yurub iyo dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub. So it would be the European Union in Brussels who would look at that. waxay ahayd afhayeenka howlgalka ciidamada badda Midowga Yurub ee ilaaliya badaha Soomaaliya. waxay ahayd taliye Jacqueline Sharif. waxaa waraysigaasi la yeeshay Ismaaciil Xuseen Farjar. waxaa la soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaad nagala socotaan VOA Washington. qaybaha kala duwan ee idaacadayada ayaanu gudbi doonaa. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo maanta ay ku beegantahay guud ahaanba dunida laga xusayo, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo weliba xubintii dooda gaaban. balse marka hore ayaan idinku soo dhoweeyay amaba aynu dib u milicsanno qaar ka mida qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. agaasimaha hay-adda dembibaarista maraykanka ee FBI James Comey ayaa maanta hortegay guddiga garsoorka ee golaha senadka maraykanka, halkaas oo uu kaga jawaabaya su'aalo ay ka mid yihiin eedo loo soo jeediyey oo la xidhiidha doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sannadkii hore, oo ay ku jirto baaristii uu ku sameeyey in tallaabooyinkii ruushka uu ku farageliyey doorashada maraykanku ay sababtay guushii madaxweyne Donald Trump. Comey ayaa ah madaxa hay-adda FBI-da oo hay-adda ugu sarreysa ee qaabilsan sharci fulinta maraykanka, ayaa sheegay inuu ka jawaabayo arrimaha guddida garsoorku weydiiyeen oo ay ku jirto wixii ay dembibaarayaashu ka ogaayeen weerarkii Moscow ay ku jabsatay kombiyuutarada xisbiga dimuqraadiga xilligii ololaha doorashada. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegaysa in weerar ismiidaamin ah oo aroornimadii Arbacadan ka dhacay magaalada Kabul intii lagu guda jiray xilliga la wada degdegsan yahay ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof ayna ku dhaawacmeen 25 qof oo kale. afhayeen u hadlay isbahaysiga NATO ee uu horkacayo Maraykanka ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah gaadiidkooda hubaysan lala beegsaday weerarka. waxa uu sheegay in 3 ka mid ah askartooda ay ka mid ahaayeen dadka dhaawaca uu soo gaaray, hase ahaatee uusan dhaawacoodu ahayn mid halisa.
fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal ciddii warbixinada iyo weliba wararka iyo barnaamijyadaas isagaana waxay dib ugu daalacan karaan boggayaga voasomali.com. maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda waxaanay ku soo beegmaysaa iyada oo sanadkii tegay ee 2016 heerka xorriyadda saxaafadda uu gaadhay meeshii ugu hooseysay muddo 13 sannadood ah. hay-adda Freedom House ayaa sheegtay in 10 meelood ee liiska meelaha ku tacadiya saxaafadda iyo suxufiyiinta xagga sare ay kaga jiraan ay ka mid yihiin wadamada Azerbaijan, Crimea, Cuba, Equatorial Guinea, Eritrea, Iran, North Korea, Syria, Turkmenistan iyo weliba Uzbekistan. laakiin Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha xorriyadda saxaafaddu ay halis gasho. haddaba wariyahayaga Cashe Ibrahim Aadan oo haatanba stuudiyaha igu wehelisa ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta koonfurta iyo bartamaha Somaliland iyo Soomaaliya. sida ay qortay hay-adda Freedom House ay xarunteedu tahay dalkan Mareykanka ee ururisa macluumaadka isla markaana u ololeysa dimuqraadiyadda, xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha. sanadkan 2017 xorriyadda saxaafadda ee guud ahaan caalamka hoos u dhacaya ku yimid isagoo gaaray heerkii ugu hooseeyay iyadoo ay hoos uga dhacday 13% halkii ay taagneyd sanadkii 2016. magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxaa maanta ka dhacay munaasabado lagu maamuusayay maalintan xorriyadda saxaafadda. Maxamed Ibraahim Macalimo, xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusoj, ayaa iga warramay qaar ka mid ah meelaha ay munaasabadahaasi ka dhaceen iyo sida looga xusay maalintan. maanta waxaa magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Kismaayo, Garowe iyo Baydhabo iyo Jowhar iyo Cadaado ay ka mid tahay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ay ku qabteen munaasabada maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka. waxaana runtii taageeraan ka helnay qaramada midoobay xafiiskeeda Soomaaliya. sanadkan ayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed waxa uu ahaa sanad wax badan uga duwan kuwii hore u soo maray, gaar ahaan 2 sano ee la soo dhaafay, waayo waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid dilkii loo geysan jiray wariyaasha. haddana Maxamed Ibraahim Macalimo, xogayaha Nusoj, ayaa sheegaya in weli ay sii socoto tacadiyada soo gaaraya wariyaasha Soomaaliyeed. sanadkan haddaan joogno ilaa iyo May wariyaal ilaa iyo 16 wariye ayaa dalka meelo kala duwan lagu xiray. mid ka mid ah waa la afduurtay, laakiin alxamdulillah ilaa hadda sanadkan wariye la dilay intaan ka warqabo ma jirto dalka oo dhan. sidoo kale sanadkii lasoo dhaafay waxaa ogtahay 3 wariye la dilay. tan iyo 2011 ilaa 34 wariye oo Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa la dilay iyagoo shaqadoodii gudanaya. welina waxaa sii socda hanjabaadaha tacadiyada maaragtay gaarka ah iyadoo dhinacyo kala duwan iyo gacmo kala duwan ay ka imanayso oo loo geysanayo saxaafadda madaxa bannaan. marka la fiiriyo sanadkii hore iyo sanadkan waxaad moodaa inuu noo yeesran yahay. sanad walbana sanad ka dambeeya waxaad ogaanaysaa sanadkii 2011 19 wariyaa la dilay. marka hoos u dhac ayaa jiray marka ka dambeysa. waxaan rajaynayaa inay dhammaan doonto gabi ahaanba in wariye Soomaaliyeed isagoo shaqadiisa gudanaya la dhibaateeyo, lagu xadgudbo. sanado badan ayay saxafiyiinta Soomaaliyeed hawshooda ku gudanayeen iyagoo wadnaha farta ku haya, isla markaana ka cabsi qaba goorta ay soo gaari doonto gacantii dishay saaxiibadood iyagoo ku guda jira howl maalmeedkooda saxafinimo. Macalimo ayaa mar kale ka warramaya waxa lagu sababeyn karo hoos u dhaca ku yimid tacadiyada loo geysto wariyaasha oo uu dilkuna ka mid yahay. runtii horta waa wax xag Allahan maaragtay arrinta ay ka qornay, laakiin waxaad moodaa in tababaradii la sameynayay iyo sidoo kale dhinacyadii tababarada ammaanka la xiriiray xoogaa dadku faham inuu jiro. sidoo kale warbaahintu way koraysaa. shalay sidii la ahaa xaalku maaha. warbaahin digitaala iyo kuwo TV-ya iyo kuwo maaragtay online ayaa soo baxay oo maaragtay marka inkastoo weli meelaha qaarkood ay iska yara dhibaatadii jirto, haddana waxaad moodaa in wax badan ay isbedeleen. marka inta kalena waxaan doonaynaa in ay horumarkaa la qaadato. waxaa jirta saxaafad Soomaaliyeed magaalada Muqdisho sida ay u shaqaynayso ama meel kaloo dalkaba aad la yaabayso sida ay dhexdhexaad u tahay, sida hawsha ay qabanayso aad leedahay. mararka qaarkood waxaa la barbardhigi karaa hay-adaha caalamiga. marka fahamkaasna waxaa keenay shaqooyinkii muddada dheeraa iyo tababaradii la sameynayay. waxaanan u mahad celinaynaa cid kastoo qayb ka qaadatay tababarka saxaafadda Soomaaliyeed, haddii ay ahaan lahayd mid gudaha iyo haddii ay ahaan lahayd mid caalami intuba. magaalada Hargeysa ayaa waxaa sidoo kale maanta ka dhacay xus loo sameynayay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka. Maxamuud Cabdi Jaamac oo ku magac dheer Xuuto waa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja. waxa uu sidoo kale cabir ka bixinayaa heerka xorriyadda saxaafadeed ee ka jirta Somaliland. wallahi waa
arrin aan qarsoonayn Somaliland in saxaafadeedu xorriyada qowlkeeda labaduba ay yihiin kuwo aad u wanaagsan oo aad u sareeya haddana sidaas ay tahay way jiraan tabashooyin iyo cabashooyin in arrinta xorriyada saxaafadda ka taagan adduunyadu ma dhamaato mar walba waxbaa ka dhiman marka waxaan u aragnaa inta aanu haysanaa in ay tahay in ka weyn dalal badan oo Somaliland jaarla ah inta ay haystaan waxaan u aragnaa saxaafadda Somaliland runtii dhibaatooyinka faraha badan leh ee ay qabaan saxaafiyiinta Soomaalida oo kale in anagu aanu ka badbaadnay oo sida aad la socoto Somaliland wax saxaafada oo dhibaato dil gaarsiisan loo geystay mar kaliya ayay ka dhacday taariikhda Somaliland gobolka Sool hay-adda saxafiyiinta Somaliland ee Solja ayaa howlaha ay qabato waxaa ka mid ah diiwaangelinta tacadiyada soo gaara saxafiyiinta ka howlgala deegaanada Somaliland kuwaasoo qaarkood ay kaalin ku leeyihiin wariyaasha laftooda sida uu mar kale noo sharaxayo Xuuto labadii sano ee sanadkan ka horeeyay 2015 iyo 2016 aad bay u koobnaan tirada saxaafadda la xidhay ama aanu diiwaan gelinay bilood imika u dambeeyay inagu xoogaa yaro kordhay waxaana ilaa hadda aanu diiwaan gelinay ilaa 30 case oo saxaafadeed oo qaarkood saxaafadda lafteedu ay xadgudubyo samaysay inta kalena iyagu loo geystay xadgudubyada waxaa magaalada Hargeysa weli ku xiran wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon hase ahaatee Xuuto ayaa xariga Coldoon ku sifeeyay inuu yahay mid siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn hawshiisa saxaafadeed wariye Coldoon saa la socoto ee caalamka warbaahintiisa oo dhan baahisay dacwadda loo haystay waxay ahayd mid ka baxsan arrimaha saxaafadda arrimo siyaasadeed bay ahayd anagu kulli door baan ku lahayn dacwadihii waanu dhageysanaynay soo jeedinayay laba maalmood oo labadii maalmood ee maxkamaddu gelin hore gelin dababa ay shaqeynaysaa ahayd oo ka duwanay dacwadihii hore marka runtii dacwadihii lagu soo oogay waxay ahaayeen kuwa siyaasadeed oo ah in qarannimada Somaliland waxyaabo kullidiya oo uu ku taageerayo Soomaaliya uu sameeyay taas baana runtii maxkamaddu ay ku xukuntay dhinaca kalena war-saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wariyaasha Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal naftooda u hura dalkooda war-saxaafadeedkan oo sidoo kale lagu maamuusayay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ayaa loogu hambaliyeeyay wariyaasha iyo hawsha ay u hayaan dalkooda wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu xusay maalinta xorriyadda hadalka ayaa sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay dhiirigelinta xorriyadda hadalka Casha Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii ku saabsanayd maalinta xorriyadda saxaafadda dunida oo maanta guud ahaanba dunida laga xusayo waxaanad ku dhageysanayseen idaacadda fiidnimo idinka imanaysa Washington markale cawaysi wanaagsan meel kasta waad naga maqlaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA hayeen wararkan iyo warbixinadan si toos ah idinkaga imaanayaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno masayrka oo ka mid a waxyaabaha inta badan dumiye qoysaska hase yeeshee haddii la helo dad aqoon leh oo wax fahmaya sida diinta islaamku ay qabto qofku ninku uu guursan karo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 hadduu awood u leeyahay hase yeeshee kuwo badan oo aan wax awooda u lahayn ayaa inta badan waxay guursadaan gabdho fara badan oo markaasi reeruhu ay dumaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qaybgelaya عصب عبد الله إسحاق أو أركسن لو يقان أو يدو كاملة ذاتك الدميي أما الدريمي لبعتها مصير كليه إيو أبوان أمباسطر محمد حسين أوليو أريما حدقنك إيو سوغانتا وحنكو بلابيا عصب عبد الله إسحاق أركسن بسم الله الرحمن الرحيم ان ادي اد با اد umahsantahay anagu dumarka hadii aan nahayna mowqifkeenu waxaan horta marag ma doonto inaan hal mid aan isku wada raacsanahay halkaas mid oo ah inay qof walba oo dumar ah maanta wax barato ama maanta madaxa ahaato ama guri joogtaha ahaato in ay jeceshahay haweeneydu inay ninka qaba ama zawjkeeda oo ayada kaliya oo ku ekaado halkaas horta waan ka wada simanahay laakiin dibto halka ay ka jirto ay ka qoransantahay waxa ay tahay raggeena Soomaaliyeed qaar ayaa waxay noqdeen hawaraac qaar ayaa waxa ay noqdeen kuwa waxyaabo badan dumarkii la soo dirsa
waxaa ka mid ah aniga maanta aragsan ahaan ama cusub cabdulaahi kama soo horjeedo maanta raggeena inay guursadaan 4 laakiin aniga waxaa aaminsanahay ragga Soomaaliyeed totally uma train gareysna ama uma diyaarsana inay guursadaan 4 dumar ah maxaa yeelay hadda ka soo qaad aayada quraanka kariimka ah ee ku bilaawanaysa guursada 2 3 4 marka halkaas la maraayo raggeena ee Soomaaliyeed waxay ku dhaqmaan intaas hore ee aayada ah fa in khiftum alla ta'dilu fa waahidatan minha ad markii la yiri aayada meeshas way uga hareen raggeena Soomaaliyeed taasoo ah cadaaladi anaga hadii aan nahay dumarka Soomaaliyeed meel walbo daafaha caalamka aan ka joogno waxa aan ku doodayna waxa ay tahay inay raggeena waxba cadaalad ay sameeynin cadaaladana ma ahan xagga jacayl ambassador awli bismillaahir rahmaanir rahiim yaas وين السلام يا أنا قلت إلهي ونسي ياسينو وحوي ودمرك إلهي رجع الصوماليين أنتوا قوم النشيء أنا يوحنا فيليا أنا أيوب ناندونتو لولك يهوذا يا خيرات كمركا لجربوا وحوي ودمرك قبلها يا شرفت قيمها بدن لبعتها السنة هاي ستوحى شراء قبله قربها يسوق جلان waxay markaas ay waxay leeyihiin waxa weey lady first one man one woman hal gabar iyo baalkii iyo hal nin iyo waxa weey 911 iyo 99 iyo waxa weey nambaradaas loo diraya waxaan isleeyahay in wiilasha Soomaaliyeed waxaan ku buurinayaa sidii nabiga kaleey salaatu salaam waa diintu baa hadda aayadii walaashay ay cusub soo delisay ay leedahay rasuulka nin baa u yimid kaleey salaatu salaam yaa rasuulullaahi faqri baan maara iskaga waayay markaas uu leeyahay guurso markaas uu leeyahay maara waxay is leeyahay guurso markuu tagu guursadu maalin dambe u yimid war ii war wax ma heshaa markaas waxaan rabaa inay ii siyaado labee buu yiri markaas haddana saddexe haddana afre إلا يريد مدال يلا يا إسرائيل تونيكينا ومارت وتاجري وحلا ربا وحنا ودين تانا فرتي وح للربا إنه عادل نمر لقصة ما يحبلها سوماليتنا وحن ليه رجع حبط بعد ما يسيق قحبة لما يدلك ولا قاذنا يا وحوي الدولة ده درس كان نقص وفافية والرجع حل ضدك وباب إن قبله مركي بقول ويل دمتا أما الله بقول ويل أي دمتا أما كم بأي دمتا أي حال قبل كده ما نسا وقراد إن الجورسدو وعليه رجع سوماليت غير مرة وتلسيه ما هو مر لساري بمرك ما داي hablaha dhageysanina guursada oo waxa weey wax lagu talo xumaado guur baa u fiican oo brita iska imaanaya waba mid daabatin firaardi ilaa ala allah risqo ba ilaahay leeyahay risqa allah bixiyo guursada laakiin mid baa fariin ah oo farad idinku ah inay caadilna u sameeysiin maanta inkastoo ay sharaf ay tahay inkastoo xagga ragga oo iga xigsaday oo dhinac ay riixayo ma sha Allah ay sharaf ii tahay inaan maanta awliya aan ma sha Allah kala qayb qaato dad wadaagan masayrka ah taas waxay ku tusinaysaa inuu aad iyo aad xasaas u yahay oo abwaan iyo bahalku aysan kala lahayn iyo meel oo dadku xagga masayrka laga wada siman yahay markii aad taas ka soo gudbo aniga waxaan dhihi lahaa anigoo hadalka walaalkay awliya ku daba taagan abwaan awliyo ragga Soomaaliyeed ha inoo kala soocaan ama ha inoo kala qeexaan ama ha inoo kala sheegaan sababaha ay u guursadaan dumarka hadda waxa uu ka dhawaajiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiskii uu soo daliilsaday saxaabiga nabiga uu yimid kaleey salaatu oo yiri faqri baa guurso haddana wuxuu yiri inay Isa idaa raba guurso markama wuxuu u guursanayaa nimanka Soomaaliyeed waxay u guursanayaan inay xoolo badan ay helaan waa qodobkii koowaad oo aan rabo inay iga jaahil bixiyaan raggeena Soomaaliyeed oo dadka qaarna ay aaminsan yihiin oo ay aaminsan yihiin hal naag adigoo qabto hadii aad faqiir aad tahay marka naag labaad guursato waxa laga yaabaa inay ku kala kacdo oo aad taajirto halkaas marka waxay iga muuqataa burbur iyo jacayl la'aan inay halkaas ay jirto oo ninkan asaga uu ahaa adduunyo raadis ee awlaad fiican iyo zawjad fiican oo halkaas uu ku raadinaynin maxaa yeelay hadii uu raadinayo xaaskiisa kaliya ayuu dhaqaalaysan lahaa marka waxaan rabaa taas horta inay kala soocaan ama ay qeexaan sababta ay u guursanayaan ma xagga inay maalku dhaqaalaha aha mid labaad waxa ay tahay oo aan ragga Soomaaliyeed bulshada dhexdeeda ku arkay waxa jirto qaar baa inay tooq iyo faan ay ku faanaan u guursadaan inay dumarka badsadaan marka ragga Soomaaliyeed inta ay taas ku jirta anagu masayrka ma deyn karno maxaa yeelay cadaalad darrada ayaa meeshaas ka muuqato mid baa wuxuu u guursanayaa magaalada uu imaaday war waxa la leeyahay war hebel waxa tahay maanta inta jira wax baa haysata halkan xaaskii waxa laga yaabaa xaaskiisa inay dhalin yar tahay ee wali ma sha Allah awlaad fara badan Ilaahay haduu ka siiyo oo u dulqaato oo sabr u yeesho uu ka helo laakiin waxa la leeyahay war maxaa ugu joogtaa ma daqan baata ma dad waxa arkay kuraasta looga kacay maqaayadaha la yiri hal xas baa ku eg tahay nalama fadhiisan kartid oo shahna lama caabi kartid taay cusubeysa su'aalo badan ayaad weydiisay abwaan awliyo marka waxaan siinayaa abwaanka horta waxa weeye meeshan marka laga hadlayo guur waxaba horta xaraan ah in ama xoolo ama interest ay meesha soo galaan waa inay soo gasho jacaylkii abu baalkii Bilal ibn Ribaah
oo gabadhii Quraysh markii inta hasha loo saaray haba uu milacsanayay oo waxa weeye ay go'a kala sheergareynayeen markii uu guriga ugu soo galo gacanta midigtaana ay ku qabsanaysay raashinkii maradana dhaxda inta taag yar ugu xirto oo hal mar si uga dhifto dhinacan kalena usha ay leedahay haddii laga soo xanaajiyeen hoo ushaan haddii aad haraatan tahayna hoo biyaan haddaad aniga ii baahan tahayna ifcal maashita horta wax way guurku wax laga hadlayaa jacayl iyo rabitaan iyo labada qof wax way xubbi baa laga hadlayaa ma ahane lagama hadlayo nin iska qayro mas'uul iyo taas hadda diintu ma qabto meherkiina xataa sidoo ku ansaxaya haday gabadhu ay maaragtay ugu xor ay ga xooweysay oo kale ay tahay wax way bisharaacada islaamiga marka loo fiiriyo meherkaas inuu ansaxayaba lama filayo laakiin waxa laga hadlayaa nin rijaal ah oo gabar isguursadeen oo waxa weeye nin waxa la yiraahdaa wiil wuxuu hiilkaaga baahan yahay markaad hooyadii doonayso Soomaalidu waxay tiraa nin walba wuxuu is hoos dhigaa horumar yani in aad u doorto oo wiilka hooyadiisa aad uga doorto oo wax weeye waa inaad awlaad u guursataa كوا إن أدوح ويا إسلام كحوجسا كوا إن قلبك كشر تاسين النبي عليه الصلاة والسلام ير ورجور كبضيع أنا كوفا أنا ما أنت يوم القيامة رالين كي هلا رجع ما كوفانة نفط إذا كرعده وارنه يعني رالية ده وحلاقة الله لبنا نسكم ده ياسين وحيصير في جبر في عنو رالية هذا حال هيسا وذر كيسا جور كإن لبضينا لكان يأكلوا ذي هذا وحلا هلا بضيع لكن تبسورة أو قيمة أو ضدك وحجنا هذا بحالكم حويه إن ياسين أدي أدبا أمها سنت هاي إن كوحنده لها أو كسو جبين لها وحال إذا كجبها هي رجعنا الصومالية وحقيقة هاي مسؤولية أدي أد إن أوين أو أدي أد أفر برارن مسؤولية داس أردن والبتاله مسؤولية أن تصالي أوسقته ولكن أوليو إن وحكمت أهد علشان سوجدي إن سحابية أهد إلى هاد أما أشها يجو جرع أما محل يجري وحكتو سنسا إن قفت هويني ده إن سوج كده أي وحول بقى أهوري كرتو لكن أنا جلفتر كان هيركس وجارسي سن هاي لكن وحال سكرها سوج كي أنا كلجي أما أنا يجو أكان لها أو أنت سمودة رحمة أوصل بندق لها رجوا حقيقين كوبا إن كلام كان إن كوبا إن حاسس ككل فكراية حتى ما أنت واحد عيسى أو دي بعتها مسير كوكا كان أما ناجها بدن أي كان أنا حقيقة هاي إن مركب ما أنت زوج كذا أدوح من أكسن أو سمسه أو سوجيد شاء أو سمسه أو حاسك أو قبو ما بإسك آمنايو قفتن إن أساق جعل أو قبت أو حن أسمينا وحو إسرائيل قفتك على إسكريح بأرنتان أسمينا سا أدي هذا زكواز وحيا عصب عبد الله إسحاق أو أركسن لو يقان إيو أمباسطر أبوان محمد حسين أوليو تودي قامريد ما تنتهي وتشوف مركلها هو ذا كل بدون هدي لا رالي كرغو سلايو نبتقلي xubinta dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheer intaas haddaanu ku dhaafno haatanna cabdixakiin maxamuud shirwac oo dhinacayga fadhiya aan idinku duwayaa iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska xanuunka qulubka ama waxa afka caafimaadka lagu yidhaahdo dibression ayaa xanuuna ku dhaca maskaxda qofka iyadoo uu si guud u haleeli karo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana lagu tilmaamo inuu yahay kani ugu horreeya ee sababa naafanimada dhinaca maskaxda aadamaha iyadoo haddii uu qofka haleelo uu ku keeno isku buuqo dibressionku waxa weeye waa xanuun oo aan inta badan hore loo diagnose karayn oo aan cidi ogaan oo qofka isku buuq bay yidhaahdaan ama qofka oo intuu fakero oo noloshiisu ku adkaato marka haddii aan kasii hadlo waxay noqonaysaa depressionku macnihii qofkii bini-aadanka ayaa wuxuu nacayaa noloshiisii wuxuu jeclaa ama matalahaan oo kale waxaan odhan karnaa oo kale aad ka dareemaysaa qofkaasi inuu dareemayo inuu lumiyey dareenkiisii oo ahaa wuxuu jeclaa wuxuu interest garan jiray ama kubad hadduu ciyaari jiray ama hadduu meel tegi jiray ama wuxuu ku raaxaysan jiray kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed ismaaciil haybe oo madaxa qaybta daryeelka gaarka ah ee loo yaqaano ICU ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaana uu sidaa u soo tilmaamay doctor maxamed qofku uu dareemaa in uu noco nolosha iyo weliba waxyaabihii uu jeclaa sidoo kalena marka laga yimaado moral jabka qofka soo gaadha ayaa sidoo kale ay kaga iman kartaa dhinaca bulshada uu la nool yahay waa sida uu sheegayo doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurguurti oo dhakhtar ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada Boorama wuxuu kaga iman karaa arrimaha bulshadiisa ayuu kaga iman karaa arrimaha wuxuu kaga iman karaa uu jirkiisa uu shaqeynayo waxa kale uu kaga iman karaa qaybta moralkiisa ayuu kaga iman karaa waxa ugu horeeya arrimaha bulshada kaga iman karo isaga oo qof meelo uu rajeynayo kala waaya imtixaan oo kala waaya qof ay xiriir uu ka wada dhexeeyo oo xiriirkii jacayl oo kale ama guur oo kale uu ka burburo waxa kaloo kamid ah qof uu jecel yahay oo waayo
waxaa kaloo ka mid a meel uu rabay in uu gaadho oo uu waayo ayaa ka mid a una helinna in laga caawiyo oo dhibki laga dejiyo. arrintan oo ah mid qofka ku keentay inay saamayn ku yeelato qaab nololeedkiisa iyadoo la arko isaga oo dareensan rajabeel aamusan ama xilliyada qaar xanaaqsan taasi oo gaadhsiin karta inuu isbeddelo waxaana loo kala saaraa 3 nooc oo xidhiidh la leh xaaladiisa waa kan mar kale doctor maxamed haybe. qofkii markaa waxaa ku dhacaya noloshii wuxuu dareemaya inaanu lahayn barajo waxaa ku dhalanaya mararka qaarkood ama isku buuq oo aamusnaana ama isagoo xanaaqaya ama isaga oo waxyaalo kale ku dhacayo marka waxaa loo kala saaraa waxaa la yidhahdaa feeling thought and behavior baa loo kala saaraa adduunka. feelingku marka waxa dareenka qofka ayaa lumaya oo macnihii wuxuu jeclaan jiray. thoughtkana waxa weeye wuxuu ka fekeraya oo kale marka qaarkood inuu isdilo ama uu dareemo inaan cidi rabin aanay dadku dan ka lahayn oo wuxuu ka baxaya macnihii society-ga ama dadkii saaxiibadii eheladii friendskiisu ka fogaanaya waxyaalo badan baa iskugu imanaya. behaviorkii oo kale shaqadu jeclaan jiray inuu tago ma tegayo shaqadu ka habsaamaya dan kama yeelanayo waxba wuxuu jeclaan jiro kale ama uu ka heli jiray ama ayoo dhan buu ka fogaanaya. xanuunkan oo alaaba si degdega aan loo ogaan ayay bahda caafimaadku sameeyaan inay muddo toddobaadya ay la socdaan noloshiisa iyo baaritaan lagu sameeyo taariikhdiisa si qofkaasi loo xaqiijiyo inuu ku sugan yahay xaaladani qulubka. inta badan lama ogaado 2 isbuuc gudahood baa lagu baaraa mana laha wax lagu ogaado inta badan oo diagnostic ahaan ama lagu qalab lagu eego caafimaad ahaan laakiin waxaa la eegaa 2 isbuuc qofkaasi noloshiisa marka waxa lagu ogaadaa history taken ama in la waraysto iyo situationkiisa la eego xaaladihiisa iyo noloshiisa wuxuu ka shaqayn jiray iyo sida noloshiisa ku bedeshay. qulubka oo xanuun ka duwan noloshii caadiga ahayd ee qofku ku noolaa taasi oo ka gadisan sidii uu noolaa amaba u dhaqmi jiray ayaa ah mid xaaladda uu qofku ku sugan yahay ama waayaha uu soo maray ay ku hogaamin karto in uu galo amaba uu ku sugnaado waxaana la tilmaamaa in walow qof kasta uu ku dhici karo haddana dhallinyarada uu halis gelin karo waa kan mar kale doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurgurte. depressionka wuxuu ku dhacaa da'da ugu fiican ee dhalinyartu ay ku shaqo tegayaan oo ah da'da 18 jir 20 jir ilaa 30 jir da'daas uu ku dhacaa da'da 50 jir ilaa 60 jirna uu ku dhacaa. waxa ugu badan oo uu ku dhacaa waa dhalinta waxaana ku keeni kara dhibaatooyin qofka ku dhaca way ku keeni karaan haddii dad lagu hordilay oo uu arkayo way ku keeni kartaa depressionka ama qulubka ama niyad jabka haddii inan la kufsaday oo kale oo la dhibaateeyey way ku keeni kartaa haddii ay jug soo gaadhay oo gaari uu la dhacay oo kale waxaa la dhahaa post traumatic stress depression wuu ku keeni karaa haddii ay jug soo gaadho haddii dhibaato uu dareemayo oo uu ka sheekayn kari waayey ama uu xal u waayey way ku keeni kartaa. meelo badan oo dunida ayaa la aaminsan yahay in xanuunkan aan si saxa loo baadhin amaba qofka lagu sheego xanuuno kale oo aan ahayn qulubka bulshada soomaalida oo ula simeena bulshooyinka kale ee dunida ku dhaqan ayay jiraan waayo kala duwan oo ku sababa inuu ku dhaco xanuunkani haddaba maxaa ku keena in uu haleelo xanuunkani waa kan doctor maxamed haybe. soomaalida markaan eego xanuunkan inta badan society-gana aad uma eegto umana tixgeliso iyagaabad mooda marka qaarkood inay sii waalaanba qofka isagoo iska caafimaad qaba u baahan wax yaro fudud in loo sameeyo haddii ay dhibaato haysto macal soomaalida inta badan waxa weye society-gana aad iskuma waraystaan xoogaal maaha ilmaha iskuol baa loo diraya ama jaamacad baa loo diraya ama qofka shaqadu ka imanaya isma waraysanayaan isma ogaanay waa ninkan maxaa ku dhacay maxaa haysta mararka qaarkood waxa dhacda qofka inuu maaragtay familigiisu qof ka dhintay ama uu ka geeriyooday ama financial problem lacag la-aan haysto. marka laga yimaado xaaladaha caadiga ah ee la xidhiidha dhacdooyinka qofku goobjoogga u soo aha iyo waxyaabaha uu rajaynayay ee uu waayey ayay sida oo kale jiraan xanuuno la tilmaama in haddii ay qofka haleelaan ay ku keeni karaan inuu qulub ku dhaco xanuunadaasi oo ay ka mid yihiin kuwa qofka muddada dheer haya amaba noloshiisa inta ka dhiman kuwaasoo sida doctor cabdiraxmaan gurguurte uu sheegaya uu ka mid yahay xanuunka HIV. waxaa jira xanuuno caadiya oo qofka hadday ku dhacaan ku keeni kara niyad jabka iyo xanuunkan depressionka waxaa ka mid ah qofka hadduu xanuunka HIV AIDSka qabo wuu ku keeni karaa depression ama qulubka ama niyad jabka hadduu qabo xanuunada HIV-ga xanuunada qaarkood xanuunada macaanka qaarkood xanuunada jooga ama faalishka xanuunada kansarka xanuunadaasi waxa ay comorbidity leeyihiin ama ay la xiriiraan inuu qofku uu qaado niyad jab
xanuunkan oo ka mid a kuwa bahda caafimaadku ay aaminsan yihiin in si fudud loo daaweyn karo islamarkaana uu qofka ka raysan karo ayay ka mid yihiin caqabadaha inta badan ku gadaaman in loo helo adeeg caafimaad oo wax ku ool ah inay door ku leeyihiin koobnaanta howlwadeenna u tababaran iyo fahamka bulshada oo aad u hooseeya waxaana ay dhakhaatiirtu ku taliyaan in qofka uu haleelo ay tahay in uu la tashado dhakhaatiirta islamarkaana aanu wax kale aaminin waa sida uu qabo mar kale doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurguurte xanuunkan haa wuu hortegi karaa waana dadkana waa looga wacyigelin karaa waa in loo arko xanuun haddii uu qofka ay dhibaato ku dhacdo waa in uu la tashado baxda caafimaadka oo la soo xoogo oona u arag dhibaatadaa ku dhacday inay kaga timid jin inay kaga timid il in ay kaga timid cawri oo u arko dhibaatadaasi inay tahay dhibaato ku dhacday xalkeegana uu ka raadiyo baxda caafimaadka ee u hela xanuunkaasi si loogala taliyo looguna sheego calaamada waxa ugu waaweyn 5 calaamadood sheegnay hurdo la'aan qofka u arkay in cidi caawin karin rajo la'aan waxaasoo dhan waxay ku keeni karaan inuu marka dambe uu qofku isku arko inuuna qiimiba lahayn oo halis ku keenaysa in uu isdhibaatay guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan daniintaynu kan mid lamida isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano alla iyo weliba ismaqal dambe oo xiiso badan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo cabdixakiin maxamuud shuruuc intaas haddaanu ku dhaafno war degdeg oo haddana soo gaareen waxa uu sheegay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booqasho rasmi ah oo 2 maalmood ay uga bilaabatay dalka etoobiya kadib markii uu martiqaad rasmi ah u fidiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi xeele maryan desaalen labada hogaamiye ayaa waxa ay ballan qaadeen inay si buuxda ay u meelmarinayaan heshiisyadii hore ay u kala saxiixdeen iyo sida ay diyaarka ugu yihiin in ay abuuraan guddi wada jira oo ka shaqeeya sii xoojinta iskaashiga labada dal guud ahaana dhegaystayaal idaacaddaydii fiidnimo oo ay si wada jirayda ku daadihinayeen cashe ibraahim aadan iyo weliba anigoo cabdixakiim maxamuud shuruuc intaasaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo idaacadda xigta intaanu isugu iman doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo